أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان walaalahana daawanaya meel kastoo joogtaan. waa aniga ustaad Fartuun Uthmaan oo uga baratay mar walba inaan soo gudbiyo duruus axkaamta haweenka ah iyo guurka wanaagsan. laakiin markii hore anigoo niqaabana soo gudbin jiray. maanta sidaa arkaysaan niqaabkii igama muuqdo duruuf caafimaad awgeed iyo yaa kaliftay inaan niqaabkii ilaahay igu ciseeyay muddo badanna aan watay oon sanadkan iska dhigo xagga indhaha iyo xagga neerfaha. marka taas waa xagga duruufta aniga xagga i khuseysay. marka waxaan rabnaa maanta inaan idinla wadaagno ciddada haweenka ay tirsadaan oo shareecada ay u jidaysay markii gabadha ninkeedii hore uu meesha ka baxo intaan ninka kala guursanin in ay ciddo imaanayso. marka ciddada waxyaabaha shareecada ay ku khaas kala tahay waaye oo diimaha kale aysan lahayn oo ilaa hataa khayru muslimiin ay ku ammaaneen andafu imra'atin fi lcaalam almar'a muslima, dumartan ugu nadiifsan uguna wanaagsan uguna dahaaro badan inta gabadha muslimadda xilli kasto shareecada ay axkaam u dejisay. markay xayd qubaysanayso u yimaado istaahirinayso, markay ninkeeda gogol la samayso istaahirinayso, markay umusho istaahirinayso, markii ninkii hore uu ka dhinto ama uu furo ka nadiif ka noqonayso istibraa riximkeeda ilmo ku jira inaysan ku jirin shareecada hubso waqti loo kala dhexaysiiyey gaab ah oo ninkii hore meesha ka baxay ama geeri ha noqoto ama furiin ha noqoto iyo ninka dambe oo imaan doona in waqti shareecada u kala samaysay si aasan nasabku isugu dhex darsoomin. cidda marka taasa la yidhaha waqtiga gabadh ay tirsanayso imaa ninkeedii uu dhintay waa imaa ninkii oo furay. marka ciddatu marka waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood: ciddadii oo geeri sababteed meesha ku imaanayso iyo ciddadii firaaq ku imaanayso. ciddadii wafaadka ee gabadha ninkeeda uu dhintay qur-aanka si toos u cabiray 4 bilood iyo 10 beri iyo tirsanaysa haddaysan xaamilo ahayn oo uur lahayn. hadday xaamilo tahay uur leedahay gabadha markaa uurka intay ka umulayso noqonaya. uurka qur-aanka labadaba waa sheegay waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina 4 ashhurin wa 10. markii gabadhii laga dhinto oo ninkeedii adduunka uu ka tago 4 bilood iyo 10 beri ay tirsanaysaa. muddadaasna waxaa soomaalida u taqaanaa asaay ama al-ixdaad. hadday marka aysan ilmo ay joogaan oo iyadoo ninkii iyadoo uur leh oo ninkii ka geeriyoodana ulaatul axmaali ajalahunna an yadacna xamlahunna. markii uurka dhigto marka uurkeeda haddii markaas uurka yeelato ilaa 9 bilood ay sidaysaa markay umusho ay ciddadii dhammaanaysaa. haddii marka iyadoo maanta uu dhintay beri oo kale umusho ama caawa kale umushana waqtigaasi ku egta ciddadii ku egta qofkay doontay guursanaysaa. marka taas waa gabadhii laga dhintay. gabadhii la furay iyadana ciddadeeda 3 qaybood u kala qaadeen: inay uur leedahay markii la furayay oo iyadoo xaamilaa la furay ama uur yar ha noqdo ama uur dheer ha noqdo intay ka umusho gabadhii uurka laheed laga dhintay ku xukun tahay oo ulaatul axmaali ajalahunna an yadacna xamlahunna. markasta midda uurka leh inay tay ka umusho nin kale ma guursan karo meeshana ma soo geli karo. inaysan uur lahayn markaa waxay tirsanaysaa oo xaydkii hooyo xaydkii ku dhaco ee xaas xaydkii ku dhaco qof dumara oo xaydkii u jooga ay tahay caadadii aysan ka guurin. markaa saddex xayd bay tirsanaysaa. walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna 3 quruu. 3 bilood ay tirsanaysaa. marka 3 xaydan ka wada ay tirsanaysaa. xaydkii koowaad ku dhaco ku labaad ka saddexaad haddii bishii 2 jeer u yimaado haddii bishii 1 jeer u yimaado haddii 2 bilood dhexdood uu 3 jeer ku kala dhaco khalaas intaas marka xiddadii ku eg tahay waa gabadhii markaa xaydka uu la joogay oon weynaanin. haddii marka gabar yariis oo la guurso xaydkii weli u imaanin oo dhiiggii caadada aan ku dhicin weli ay tahay lana guursaday lana furana ciddadeeda iyo gabadha duqowday oo aan duqoobin laakiin caadada ka guurtay macnaha da ahaan ma duqoobin laakiin xaydkii waa ka guuray oo qof caadada ku dhacaysa ma ahan iyo gabadha yar oo cayd oo weli ku dhicin
ayada xukunkooda waxaa waaye 3 bilood واللائي والله محت واللائي يئسن من المحيض آية waxay ahayd واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن gabadhii maxay ahayd caadada ka guurta ka quusatay inay maxay ahayd xaydo iyo tii maxay ahayd yareed maxay ahayd xaydku weli u imaanin 3 bil iyo tirsanaya inta ama wuxuu ku sheegay marka gabadhii iyadoo xaamilaa la furo ama laga dhinto oo inta ka umusho gabadhii iyadoo maxay ahayd hooyo xaydka ku dhaca la furo 3 xayd bay tirsanaysaa gabadhii yareed oo saqiirka ahayd oo qaangaarin oo xaydku weli u imaanin gabadha maxay ahayd waxay caadada ka guurtay 3 bil bay tirsanayaan intaas marka waxay ahayd waa ciddadii iyo maxay ahayd axkaamteedii oo gabadha maxay ahayd quraankan uu sheegay ayuha alladina aamanu idha dallaqtum nisaa fadalliquhunna liciddatihinna wa ahsul cidda tiriya la dhahay maxaa loo tirinayaa ilmihii hadda meesha joogaan haddii maxay ahayd uur jiro haddii uur jirin haddii maxay ahayd waqtiga la xisaabiyo xilliga la guursan karo xilliga lala hadli karo oo guurka meesha imaan karo intaasoo dhan waxaa waaye ciddada in la xisaabiyo ee shareecada amartay marka maxay ahayd maxaa axkaamaha ka dhalanayso gabadhii markii la furo haddii marka gabadh dalaaqeeda dhammaado uu yahay marka xuquuq ma yeelanayso marka waxay noqonaysaa maxay ahayd cidda gabadheeda wujuubu sakna laha maca zawj inay ninkii la noolaato oo maxay ahayd haddii marka maanico sharciyan uusan jirin oo waxay ku leedahay guri nafaqana way ku leedahay oo kiswa inta ciddada maxay ahayd lagu jiro gurigeeda inay joogtana shareecada waa amartay yajibu calayha mulaasamatu lmaskan walaa tufaariqu inta muddada ciddada ay ku jirtana gurigii markaa lagu furay joogaysaa oo markaa guri kale ma aadi karto oo Soomaalidu waxay leedahay naag la furo fadhi uma yaalo ninkii furayna falkiis lagu celiyay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayyina marka gurigan ayaa ka saarina ayadan aysan ka bixin laakiin inay maxay ahayd hakato intuu ka dhamaanayo haddii laakiin dalaaqeedu u dhammaaday markaa nafaqo kuma lahan ilaa ay xaamilo inay tahay mooyaan inay xaamilo ay tahay gabadhii laga dhintan saasoo kaleento maxay ahayd lama qaab shareecada oo loola hadlo oo inta muddada asayda tirsanaysa 4 bilood si sariixa guur looma weydiin karo shareecada si kinaayo ama ogi qarsoon oo sarbeeba in loola hadlo ma ahane quraankan uu cabiray maxay ahayd ixtiraam ninkii hore oo guursaday khidbatu nisabaka iyada looma ogolo in si toos leeyahay haye guurku waa aniga inaan ku guursadaa raba inaan ku dumaala lama ogolo waxaa lagu ixtiraamayaa ninkii hore ee geeriyooday si sarbeeba waa loo dhihi karaa laakiin si sariixa looma dhihi karo marka ciddadii intaasoo axkaamay shareecada u samayso ah gabadhii laga dhintay iyo gabadhii la furay iyo sidoo kale intii xaamilada ahayd intay ka umusho tii kale 3 bilood hadday yartay hadday qof weyn tahay hadday qof caado u jooga ay tahayna 3 xayda noqonaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.